السلام عليكم. qof ma kala harteen waayadan hadday jawaabtaadu noqoto haa videogan adiga ayaan kugu talagalay hadday jawaabtaadu noqoto maya waxbaad ka baran doontaa haddii caqabad noocan ah ee mustaqbalka kugu timaadana waxaad ka helaysaa halkan xalkeeda waana way xanuun far badan baad dareemaysaa ciil baad dareemaysaa muxuu qofkan kaaga haray baad dareemaysaa niyad jab baad dareemaysaa waxyaabahaas oo dhan waa caadi qofka bini'aadamkaahi in uu dareemo gaar ahaan marka qof uu jecel yahay uu ka tago oo uu xiriirka u gooyo wayna dhici kartaa in qofka aad boqolkiiba boqol jeclaan lahayd inaad dib isugu soo noqotaan oo sidii horay aad isu ahaan jirteen aad isu noqotaan haddaba waxaa jira waxyaabo keena qofku in uu kaa fogaado qofka in aad fursad kastood ku heli lahaydba ay macquul kuu noqon weydo in qofku jaritaankii uu ku jaray ma ahane mid ka sii daran inuu ku sii jaro taasoo adiga dhaawac qalbigaaga u keeni karta haddaba waxaan videogan kugula wadaagi doonaa 4 su'aalood oo ay tahay in aadan weydiinin qofka xiriirkaaga jaray qofka kaa tegay si kale haddii loo dhigo 4 su'aalood weydiintoodu waxay keentaa in dhaawacaagu uu sii kordho fursad kastoo qofka haddayba jirtaba aad dib isugu heli lahaydeenna in ay sii fogaato isaguna intii uu ku jaray ka badanba in uu ku sii jaro haddii si kale loo dhigo wakhtigaa kugu tira badanaya aad ka bogsanaysid xanuunka aad dareemaysid hadda su-aasha koobaadna waxay tahay ma isbedeshay jawaabteeduna way iska caddayn haddii qofkani uu isbedelay uu ku soo wici lahaa uu ku soo raadin lahaa telefoonkaagii meesha laga helay wuu ku yaqaanaa fariin cad oo muuqato kuu soo qori lahaa uu ku leeyahay inaan aniga adigu wada hadalno oo arrintayna dhex taal xallinno ayaan hadda diyaar u ahay laakiin taasu ma jirto waana waxa adiga su'aasha kaa keenaya waxaa tabanaysaa qofkani inuu weli ku rabo waa maskaxdaadunbaad ku madadaalinaysaa ma ahane xaqiiqada dhabtahay waxay tahay haddii ujeeddadu ay kuwa caddahay sababtii waddadaad u mari lahaydna way ku sahlan tahay haddii qofkani ujeeddada uu leeyahay ay tahay inaad dib isugu soo noqotaan telefoonkaaga wuu hayaa shalay inuu isagu ku jaray wuu og yahay adiga dhinac walba marka loo fiiriyo su'aashani kaalmo uma noqonayso dareenka adiga kugu jira in uu jawaab sax helo jawaab saxana ma helaysid jawaabtan haddii si kale loo dhigo waa su'aal baryo huwan sida kale haddii qofka kan marka aad la hadlaysid waa bini aadam uu ku dareemayaa in su'aashu dhanka kale haddii loo dhigo ay baryo tahay adiga baryo kuguma muuqato wax kastoo adigu aad samaynaysid dhanka aad taagan tahay waa kula saxsan yihiin laakiin qofkan uu u jeedaa ujeeddo kasta oo ka dambaysa hadalka aad weydiinaysid hadalkan dahsooneed u dhiibaysid saa darteed su'aashani marna kuma tusayso in ay sabab u noqon karto inaad qofkaa dib isugu heshaan waxaana ay u badan tahay qofku inuusan jawaab saxa ku siinin ee uu kaa aamuso halkaa markaad su'aasha weydiisid inuu shibka yidhaahdo uusan waxba jawaab ka bixin ogow aamuskuba waa jawaab su-aasha labaadna waxay tahay qof miyaad la socotaa su-aashan markaad fiirisid laba waxyaaboodba qofka aad weydiinaysid ad kala harteen ee kaa haray ee kaa tegey way tusaysaa waa marka koobaad ee qofku wuu ku dareemayaa in aad dhaawacan tahay mana doonayo dhaawaca aad dareemaysid inuu mid kale kuugu daro waxaana laga yaabaa inuu jawaabtu ay noqoto tusaale ahaan may cid lama socdo oo xiriir dhanba waan iska nacay adaaba inacsiisiba mararka qaarkood lagugu oranaya iyo in ay tusayso adiga laftigaaga inay weli cabsi weyn kugu hayso qofka kani xiriir kale inuu yeesho cid kale inay kaa qaadato iyo wax lamida xaqiiqadu waxay tahay qofka noloshaada wuu ka baxay qofka noloshaada adaa tirsanaysid moogii isagu kuma tirsanayo xiriirkaaga maalintii uu jaray baana dhici karta in uu go'aankuu gaaray uu ku adkaystay uusanna dib dambe noloshaada u doonayn inuu ugu soo laabto adigu marka adaa lagaa rabaa naftaada inaad u naxdid su-aashani marka waxay tusaysaa inaad qof cabsanaya tahay inaad qof masayrsan tahay in qof jilicsan aad tahay in qof ma aragtay si u baryootamaya kale inaad tahay su-aasha noocani waxay keentaa inay adiga dhaawacaaga sii kordhiso maxaa yeelay dadka qaarkood si waxay kugu jawaabayaan toos ah oo waxay ku oranayaan haa qof kale ayaan xiriir la bilaabay asbuucii hore adiga taas marka maxay kugu keenaysaa qalbi xanuun iyo walwal iyo walaac iyo ciil bay kugu keenaysaa taana adiga cagahaaga ku doonatay marka su'aashani marna adiga qalbigaaga kaalmo uma ahan wayna habboon tahay inaad iska daysid su'aasha saddexaadna waxay tahay ma ii xiistay waa marka koobaad naftaada ha ku kajamin naftaada ha ku jeesjeesin hana isliidin ma ii xiistay jawaabteedu way iska caddahay aamuskuba waa jawaab oo markaan ku leeyahay aamuskuba waa jawaab qofku inuu kaa aamuso waxay ku tusaysaa sida adigu aad su'aasha ka qabtid ama xaaladdu sida ay tahay ee qofkaas uu dareemayo ama waxa uu sameeyo su'aasha aad ka qabtid sida ay tahay xaaladaasu qofkaasu inuu ku qanacsan yahay arrintan uu rabo bartaa inay taagnaato aamusku taasuu tusaya haddii si kale aan kuugu dhigo haddii marka aad tirahdid ma ii xiistay
adiga jawaabtaas way ku caddahay waad og tahay qofkan inuusan kuu xiisin wuu ku soo raadin lahaa wuu ku soo wici lahaa wuu ku soo dooni lahaa adigu su'aashan aad weydiinaysid waa un khasaaro waa su'aal aad ku khasaaraysid jawaabteeda marmarka qaarkood waa laga yaabaa qofku inuu ku yidhaahdo maya qofka daacadda dhabtaa wuxuu ku leeyahay maya kuuma xiisin ama waxaa lagu leeyahay marmarka qaarkood walaaltinimadeennaa ka fiican xiriirkii hore iyo waaba dhib miiran buu ahaa iyo wax la mida tan adigu siday doontaba ha noqotee waxay qalbigaaga mar labaad ku abuuraysaa dhaawac taasoo keenaysa inay muddo dheer kugu qaadato in aad ka bogsatid xanuunka qofka kani uu ku geliyey ama xanuunka qofkani uu kugu beeray adigu marka naftaada waxaad rabtaa inay bogsato sida keliya ku bogsanayso way iska caddahay waa in qofkan aad dib u heshid inaad qofkan waayadeed isla marteen oo kale aad mar labaad dib isula gashaan laakiin marka la fiiriyo xaqiiqadu taa way ka fogtahay adigu marka si kale haddii loo dhigo waxay sabab u noqonaysaa in qofka maskaxdiisa xataa aadan fursad siinin uuba ku fakaro su'aalahan oo dhan haddii laysku soo duuduubo waxay keenayaan in qofkan maskaxdiisa aadan firaaqa siinin uu bal ku fakaro inaad ahayd qof saxa iyo inaad tahay qof noloshiisa maaragtay uu ku qaldamay iyo wax la mida in aad tahay laba qof oo isu qalmay inaad tihiin iyo in kale qofku marka uu kaa tago oo cid kale soo arko oo meelo kale soo maro ayuu xaqiiqadaada dhabtaa ogaan karaa laakiin intuu meel cidlaa taagan yahay ama lagaba yaabo inuu qofku xiriir galaa dhici karta su'aalahan oo dhan waxay keenayaan jilicsanaantaaday tusayaan waxay tusayaan inaad daciif tahay waxay tusayaan inaad baryootamaysid waxay tusayaan inaadan qofnimadaada kalsooni isku qabin su'aashan jawaabteedu marka way iska caddahaye ha weydiinin su-aasha faradna waxay tahay ma kula tahay inaan isku soo noqon karno waxaana kaaga digayaa qalad ay dad fara badan sameeyaan in aadan samaynin iska ilaali qaladkani wuxuu yahay marka qofku uu maya ku yidhaahdo way dhacdaa 80% maya kuma dhahayo qofku wuu kaa aamusaya iyo wixii la mida ama meelo kalu hadalka la aadaya oo markaa ujeedadiisu aysan hadalka jawaabtiisa saxda meelaan ahayn buu adigu kula aadaya laakiin marka dhinaca kale loo dhigo qaladkay dad fara badan ay sameeyaanba waxay tahay marka maya lagu yidhaahdo ama iima muuqata lagu yidhaahdo ama qaladaad jira iyo wax la mida lasoo bixiyo loo sheego qofkii la xusuusiyo iyo wax la mida baa qofku wuxuu markaba yidhahdaa haddii aadan ii jawaabaynin ama haddii jawaabta noocan aad siisay waan kaa haraya taas waa caga juglays haddii aad haraysid iyo haddii kaleba qofkan waxaad ogaataa xusuusnaataa mar walba isagaa kaa haray hadduu isagu kaa harayna adigu inaad u caga juglaysid maba u baahnaba maxaa yeelay qofka jugta ku horumaray ee dhaawaca maanta qaba ee qalbigiisu uu xanuunka dareemaya waa adiga qofkani ma kala jecla marka shalay isagu og in qalbigaaga xanuun uu dareemayo kaa tegin dadka qaarkood calaamaday leeyihiin waxaa ka mid a inay ku soo wacaan iyagoo og shalay inay kaa hareen bay maanta haddana ku soo raadinayaan way ku soo dabagelayaan waxay fiirinayaan bal xanuunka aad dareemaysid meesha aad joogtid dadka qaarkood baa xanuunka dadka kale ku raaxaystaan oo waxay dareemaan in naf ahaantooda ama waxaa dhici karta in qofku uu qof kale arkay laakiin xiriirka markuu adiga uu xiriirkaaga jarayay uusan qofkaa kale weli isku hubin oo qofkii kalena intuu aado oo xiriir la bilaabo inuu adigana rabo inuu kaa warhayo bal inaad tagtay iyo in kale adigu waa qof guri inta laga cayriyey bannaanka taagan albaabka laga xirtay oo hadba daaqadda laga fiirinayo ma taagan yahay haddii lagu arko oo aad taagan tahayna in la yidhahdo okay noloshaydan iska sii wadanaya qof kale ila jooga hadda dhib male qofkaa kale haddii uu ka tagana adiga albaabka mar walba waa lagu ballaqaya waxaan lagu leeyahay soo gal maxaa yeelay miskiin wax jecel oo wax tabanaya oo bannaanka taagan baa tahay rag iyo dumarba way dhacdaa marka adigu naf ahaantaada waa in aadan ogaatid naftaadu in ay ka muhiimsan tahay qof kale naftiisa haddii aadan irabina waan kaa harayaa marna looguma caga juglayo maxaa yeelay xaqiiqada taalle dhabtaa waxba marna kama beddelayso haddii aad saa ku tiraadid waxaa laga yaabaa qofku inuu shibkaa yidhaahdo taasoo kugu sii fogaynaysa tuhunka iyo shakiga aad qabtid oo ah qofku ma ku jecel yahay mise oo hadhow naftaada kugu sheekayso qofkii waan kaa harayaa markaad ugu caga juglaysay inuu shibkaa yidhahdo uusan waxba jawaaba ku siinin taasu walwal fara badan bay kugu abuuraysaa maxaa yeele markaba waxaad is leedahay oo naftaada ku qancinaysaa wuu ku jecel yahay qofku wuu ku jecel hadduu ku jecel yahay waan kaa harayaa markaa tiri buu su'aal ka keeni lahaa waan kaa harayaa markaa tiri baa lagu weydiin lahaa sababta iga haraysa maxay tahay iyo maxaad maaragtay ku doorbiday inaad mise qof kalaad heshay su'aalaa imaanaya laakiin waan kaa harayaa markaad tiraahdeed oo qofku shib uu kaa yidhaahdo ujeeddadii uu lahaa baad u fulisay oo ah in adigu xanuun aad dareemaysid waa koogyahay in aad si dhaba weli u jeceshahayna qofkani waa koogyahay istiraashada gurigaaga taalla ee aad alaabta iyo wax lagu tirtiro tusaale ahaan ama dhulkaa lagu tirtiro ama alaabtaa lagu tirtiro ama afkaa lagu tirtirto kay doontaa noqoto istiraashada mar walbaba meeshay taalla gurigaaga waa ka taqaanaa sax qofkani wuxuu kuu arkaa qof noocaas oo kale ah waa kow wax liitaaba tahayba waabaad jilicsan tahayba waa waxa keenaya qofku inuu sidan kuula dhaqmo oo markuu doonana ku soo qaadan karo markuu doonana uu ku tuuri karo waa waxa keenaya marka adigu naftaada ixsaan u samee
qofka su'aalahan lama weydiiyo su'aalahan oo dhan markii la isku soo duuduubana waxay keensanaysaa in naftaada dhaawaca ay qabto aad adigu ku sii kordhinaysid maalin walba naftaadu in ay nafisto oo qofkani uu kaa nafiso oo labadiinu aad kala fakartaan inaad isu qalantaan iyo in kale waa waqtiga ugu fiican ee maanta aad haysatid ee qalbigaaga ku daweyn kartid